ninkii xasan buldaanana ahaa hadduu sii go'ay ninkii meedku ka dhacay muxuu yidhi hadduu sii go'ay xasan buldaanana hadduu god madow ku dhacay baddii Soomaaliyeed ee wixii oo dhibaato iyo rafaada laga soo maray Ismaaciil Cumar Geellaa wareejinaya badeennii xasan buldaanana markhaati buu ka yahay. Also appreciate Djibouti's role under the leadership of His Excellency President Ismail Omar Guelleh. heestii buldaanana oo mar labaad boorka laga soo jafay ninkii Sharma Boy ahaa oo kulli xaadsaday heestii buldaanana buldaanana idinka dhigaa adiga anidi waalooyo adima asaasi galooyo adiga an السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توعنا ولكن دمان جماهيرتا قوب كستي وقول كستا جوكتا ولكن عفتح بودر برنامج كيني افتيميتا حقيقوينكا iyo halganka inuu ugu jirno midnimada iyo gobonnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanay hadii aad ku xidhneen barnaamijka share-ta like-ta subscribe-ta iyo follow-ga page-ka hal mar wada taabo si daad bal hal mar wada deg hadii salaad ku joogtana u soo tukobad hayna gelin bal hadda eegay hadii kalena koob shaaha oo dheer oo waxa weey geed xamari le eegay oo dhaka jabiya u soo shubo haday kuleelo ku tahayna hal juus oo soo qaado waxaan isdul taageynaa badii Soomaaliya faraheennay ka baxday hadhow bay oran leeyma sheegin oo laylama hadin oo boodhar ay helay badeennii Soomaaliyeed horena iimaan laawayaal waxa Soomaalidu ku mahmahada bidaari sibiq bay kugu gashaa Soomaaliyeed bidaari sibiq bay kugu gashaa shalay badeena waxa lagu wareejiyay oo la isku tuuray wasaaraha ogaa ma Sheekh Shariif baa ogaa ma waxa weeye Mr. la waxsiiyay baa ka warhayeen Cabdishakuur baa wareysay la isugu tuurtuurayay oo Sheekh Shariifna u dafirayo lahayna Umar Cabdirashiid iyo Mr. la waxsiiyay Cabdishakuur weydiiya iyaguna u lahayn madaxweynaha nala ogaa soo badeeni kuma wareegino wixii oo dhibaato ah oo rafaada kama inaan marin maanta hadaba waxaan idin hayaa madaxweynihii Kenya ilmo fuufu wuxuu ka degay Djibouti buu ka degay baarlamaankii Djibouti baa lagu casumay Ismaaciil Horar dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed inay noolaadaan horeysa iyo dambayso ugu talagelin hadii Soomaali mid noqoto gobonnimo la helo oo midnimo la helo dawlad la helana inaanu meesha sii joogin waa og yahay Ismaaciil Horar sida darteed lugooye kasta ummadda Soomaaliyeed lagu sameeynayo iyo dabar jab kasta oo lagu sameeynayo diyaar buu yahay nin xiniye leh oo dalka Soomaaliyeed wax u qabanayna ma ogola baarlamaanka madaxweynaha Kenya anu magaciisa ma aqaan ruutu iyo wuutu wax la yiraahdo magaciisa ma aqaan khudbad dheer buu ka jeediyay wuxuu halka ka cadeeyay Ismaaciil Horar madaxweynaha Djibouti buu leeyahay walaalahayaan badda isku haysanay arrinka isaga dhex galay madaxweynihii dalkaana waa la hadlay arintayadii waxa weeye caalamku isku kaayidirayay iyo maxkamadiina waxba kama jiraan arinta hoos baan u dhameysanaynaa Ismaaciil baan oday ka ah baarlamaanka Djibouti oo sacabeynaya badii Soomaaliyeed waa la wareejiyay hadhow bay oran leeyma sheegin oo laylama hadlino boodhar ay helay ila daawada waatane beelo markhaatigiisa nin dheer iyo nin dhintay buu ka dhigay bal haddaan been sheegayo walaalayaalow Soomaaliyeed xasan buldaanana inuu agaasimay yahay Ismaaciil Horarna cadowga ummadda Soomaaliyeed yahay waliba war kalena waa idin hayaay bal intayna warka kale u gelin bal cadaynta ila daawada. Also appreciate Djibouti's role under the leadership of His Excellency President Ismail Omar Guelleh in leading waxaa kale oo aan doonayaa inaan ugu mahadceliyo dowladda Djibouti ee uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelleh doorkeedu ku aadan hogaaminta guddi xaqiiq raadin ah oo ka gacan geysanaya sidii go'aan loo gaari lahaa muran dhanka badda ah oo inaga dhaxeeya dal daris ah oo aan saaxiibanahay in the resolution of maritime dispute with a friendly neighbor. waa badeennii guddi xaqiiq raadin ah oo Ismaaciil Horar hogaaminayo oo waxa weeye kala guraya annaga iyo Soomaaliya ayuu Ismaaciil waxa weeye guntiga dhiisho uga dhigay bahadeegi warkii wax kabada waxba kama jiraan badeennii Ismaaciil Horar baa saxiixaya agaasimiye xasan dhiiqona raali buu ka yahay Soomaaliyeed hadhow bay dadkaas Soomaaliyeed baroran doonaan oo calama qaadan doonaan waana la dhacay waanagu maanaan ogeyn cid allaale iyo cid dalkan u maqan sidii aynu shalay ugu baraarugnay dalkeeniyo la boobay iyo badeeniyo la qaatay
NFD iyo Gaarisa iyo warkeeda badaaye waad ogeedeen tilin kula murmayay oo waliba 3 meelood ee boqolkiiba 20 loo gooyay oo aynu nahayn ilaahow intaas ma nagaga xadhi karaan aynu taagnin tii maanta la farafareynaya Ismaaciil Horar baa hogaaminaya eegi isaga waxa weeye waliba Ismaaciil Horar wuxuu samaystay ciidamo shidaalka Soomaaliya laga soo saarayo iyo ciidamada badda waa ciidamo bato bartayba dilaal calashan Soomaaliya ninka dilaalka ka ah ee mas'uulka ka ah ee cid walba ka iibsanaya waa Ismaaciil Horar mana doonayo ummad Soomaaliyeed oo gobonnimo hesha ma doonayo dawlad Soomaaliyeed ma doonayo wanaag ma doonayo sharaf waad ogtiin tuugadii mooryaantii ugu waaweyned ee dalka iyo dadka basa u boobaysay eegi buu gabdhiisa ku darsanay raga waxa weeye habeen iyo maalin miinooyinka iyo qaraxyada ka shaqeeya Soomaaliya ba waxa weeye Djibouti u fadhiya Xasan Dhiiqana gacanta ugu jira William Ruto ina fuufuuna baarlamaanka dhexdiisu ka yiri walaalka Ismaaciil Umar Gelle hawsheeda dhamaynaya hawsheeda Ismaaciil baa dhamaynaya badii Soomaaliya saasa lagu wareegaya bidaarna sibiq bay ku gashaa Soomaaliya ninka wax qabanaya ee dalka dhisaya ee dadka dhisaya ee gobonnimada iyo sharafka iyo wadaniyada iyo wanaaga iyo dal iska celinta iyo gobonnimada waad ka soo horjeesateen shalay waadiideen baritoy idinku calaalaya oo calansita iyo badii Soomaaliyeed taariikhdun baad geleysaan taariikhdun baad waxaad gashanaysaan Ismaaciil Umar Gelle iyo Xasan Dhiiqo jooga Xasan Dhiiqo waa magacuyaal kaliya wuxuu ka adag yahay Xamse Maxbuus isagu kaliya wuxuu ka adag yahay Xamse Maxbuus laakiin dalka ninka ka taliya waa Ismaaciil Horar dadka reer Djibouti waad ogtiin nolosha ay ku nool yihiin dalka deynta lagu leeyahay qof kasta oo Djiboutiyaan ah oo Soomaaliya oo Djiboutiyaan maanta deynta lagu leeyahay waa 4 milyan oo dollar calaa qof wiilka dhalan doona ee Soomaaliyeed Djiboutiyaanka 4 milyan oo dollar baa lagu leeyahay isagoo uurka hooyadii gelin waxa qaatana Ismaaciil Horar maanta waad aragtaan baarlamaanka dhexdiisa inuu kaliya ku mahadsan yahay sidoo noo dhexdhexaadiyay iyo solutionka go'aamada uu ka soo saaray xitaa go'aamada yaa gaaraya Ismaaciil Horar go'aanka ummadda Soomaaliyeed cid gaaraysa waa Ismaaciil Horar Xasan Dhiiqana waa magacuyaal badii Soomaaliyeed saasa lagu wareegay hawshaasina 6 bilood 7 bilood sanad kadib bay ummadda Soomaaliyeed ogaan doontaa fiidiyoyadan dib loo soo qaadan doonaa wariyaasha iyo suxufiyiinta Soomaaliyeed dib u soo qaadan doonaa nimanka siyaasadda ablaablayna falanqayna ay dib uga warrami doonaan ciidamada lagu tababarayo Djibouti ee ciidamada badda shidaalka Soomaaliyeed ilaalinaya waxaan maanta hol iyo laascaanood iyo sool dagaalku uga socdo shirkado dhan baa Muuse Juudaan iyo Ismaaciil Horar lacag ka qaatay Norwegian iyo Ingiriis leh oo inay si shidaalka ula soo baxaan dal loo boobtagay weeye hadhow ha oranina waxa ma oginin Soomaaliya intaas ka gudbaya heestii buldaanana oo faraha ka baxday iyo ninkii Sharma Boy ahaa oo mar labaad waxa weeye heestii aan Xasan Dhiiqo u sameeyay Xasan buldaanana eegay heestii Xasan buldaanana oo mar labaad boorka laga soo jafay iyo fanaaniin kale oo ajaanib ah oo hadda mindiyaha u lisanaysa heestaasi waa qaraxday horta ninkii Xasan buldaanana ahaa caalamka horta waxa looga yaqaan Xasan buldaanana caalamka waxa looga yaqaan Xasan buldaanana bal heestii buldaanana oo Sharma Boy ku laxaadsaday eegay oo mar labaad boorka ka soo jafay baynu iyada isdul taagna عمل ومران اتفاق بلداننا إذا كدقا أديك عني إيوالوي أدي ما أساسي قلوي أديك عني إيوالوي أدي ما أساسي قلوي أديك عني إيوالوي أدي ما أساسي قلوي بلداننا قال لي والله بلداننا وريو اللي ما كان برا بارت استمر حالي أركي ساعد وقصني أدي ما سأقول يا حسن بلداننا يا بلداننا عقادي والله بلداننا هستي هستو إنسان نقوليسو أنا قلت مو مودين بعد هذا الموضوع هستو إنسان عن نوع عن نقوليسو قمش بدل ما نقدر الهايو وسيم معاني الهايو قدتك مثلا أي قدك رابك إيه قد سوالدو رابك عيالك كو عياري شيء موقت إنه قدك رابك والين هاي لكن عروتك كو عياري شيء waxaa lagu ciyaari jiray biito xariira meeshay daylan oo daba oogan bambanaan isbanankay daaqdo amba soo eegay biitoy laab eegay
يكون هلا شين هلا لابي حباجي مقعا بلا جنة بيرت دوري ما تيدا كالي اكو تيمي اكو تال طلابسو ترقبي waxa caruurta ku ciyaari jirtay laakiin hadaan moodayo heestu inay sidan u qarxayso eeg godka waxa weeye raabka ee biito iyo maqaraysa ay beerta dhowr maarteeda kale ay ku talaabso tar waa macmaanin laha heestii hadda waa qarxday fanaankii day umada Soomaaliyeed maanta starka u ahaa Sharma Boy boorka waa ka soo jafay mar dhowdii Sambiyaanki iyo Kenyaati ba heesta ku soo heesaya فنانك ومضى الصومالي مانتا وقوع عن سوي حسن بلداننا ايه حسن بلداننا مدحوين لماذا معناها دي كارك لما مرساني مرك اللي جاي مادو دي مقع يوحوية دنك فنكنا دنك فنكنا فنان صوماليات اللي يغانو تيتل بوهيستا حسن ديقو مانتا حسن ديقو تيتل بوهيستا هيستا مانتا رضو يوسمي madaxtooyada dhan baa haduu muqdisho yimaado waa la isku qarxaha soo dhanaa la cunaa muqdisho warkaas muqdisho imo beenta iyo message-yada iyo dhaarta nimanka ka dhacaysa habeenkii heestaasi soo baxday meel TikTok leeyahay heesta la geeyo habeenka dhaarta ka dhaxaysa boodhil maho muqdisho yimaado waa kalaba u kala goyna war muqdisho aanu inta xasan dhiiqa joogo xasan buldaana joogo iman maaye maalinta xabiib malaayiinka iyo dawlad Soomaaliyeed oo lentuuga hadda joogto Mooriyaan qowleysata ma had kawaalana lagu yimaada ma had kawaalne eegi ma had kawaalana lagu yimaada oo dhiyacba maalinta dawlad Soomaaliyeed iyo nabad iyo nolol soo noqoto oo gobonnimadii soo celino oo William Ruto iyo Mirooga aanu albaabada u laabno oo Itoobiya waxa weeyaan gacan iskaga qabano oo Kenya gacan iskaga qabano oo dalku dhismo oo la barwaaqoobo oo gobonnimadii iyo sharafkii iyo qabkii iyo dawladnimadii iyo hankii uu soo noqdo maalinkaasaan anigu waxa weey caasimada ummadda Soomaaliyeed aniga Muqdisho caasimadeedii maalintaas ka soo degay xasan buldaanana inta ka horeysa anu horaan kugu sheego 4 sano ee dalka joogto wasla laasanayna waa isla dhamaysanayna oo wallahi baan ku maalina inaan bunka dhimayn hadii baan ku yiri saxaradu dhulka kaaga dhaco doorabiin weyn baan ku yiri toosh 14 ma saa dharaar kaga dhigaya dharaar ballanka wuxuu ahaa dawladni anagoo dawladnimo iyo sharaf iyo karaamo iyo midnimo ummad Soomaaliyeed anagoo sidna bad been waa laga xaa 19 anagoo ku horamayna 19 baa lagu noqonaya 19 nina liin ma cabin nina waxa weeye naqnaq iyo qamshax ma haysan nina waxa weeye guri weyn ku oo daar ah kuma jirin nafsi bay joogto bankiga yaamay ummadda Soomaaliyeed taagniid 19 eegay qof waliba ana araxdu ka jabay laakiin anaga hor bahal baa tahay xasan dhiiqoy xasan buldaanana ummadda Soomaaliyeed 4 sanadood 14 qaad toosh 14 qaad baan ku maandaraar kaaga dhigaya oo wallahi inaanan maalin bunka dhimayn baan ku waxaan kaloo ku darayaa oo qodobka ii saddexeeya warshadihii ummadda Soomaaliyeed in la xaraashiyo moogtiin wax allaala iyo wixii warshado ummadda Soomaaliyeed lahaayeen ee Muqdisho ku yaalay jidka warshadaha aad maqasho wax allaala iyo wixii warshad ku yaalay waa xaraash maxaana la yiri mataqaana warshadaha magaalada laga saaraya haye xagee la geenaya magaalada banaankeeda warshada laga dhisaya dhulkii Bangaariyada waa iibsaday xasan dhiiqo ifasiyoona warkiisa daa wasaaradii gaashaandhiga dhulkii ku yaalay oo dhan xilligii isaga iyo ina guuleed idinka Cabdiraxmaan guuleed maxaa ki meesha galmudug ka aan jiray madaxweynaha ka aan jiray eegi Cabdikariin guuleed baa iibsaday maanta waxa la yiraahdaa new galmudug baa la yiraahdaa waa xaafad Muqdisho ku taala Cabdiraxmaan guuleed Cabdikariin guuleed baa iibsaday xilligii isagu madaxweynaha xasan dhiiqo madaxweynaha oo isaguna wasiirka amniga iyo maaqa wuxuu ahaa baa la iibsaday waa dhulkii dhamaa ee wasaaradda gaashaandhiga dhul wuxuu ahaa 1 kiiloomitir oo saas iyo 2 kiiloomitir oo saas maanta waxa la yiraahdaa xaafad new galmudug la yiraahdo baa laga dhisay waxana iibsaday Cabdikariin guuleed ifasiyoona waa ku daayay dhulkii Bangaariyada waxa weeye dadka bangiyada ka shaqeeya guriyihii ay deganaayeen oo waliba lacag laga qaadi jiray dadku guryahooda iyaga lahaa eegi qof kasta oo bangi ka shaqeeya guri baa la siin jiray guriga tartiib baa looga jiri jiray dhulkii Bangaariyada iyo guriyihii Bangaariyada dhan waa iibsaday maanta waxa haray warshadii kookada iyo warshadii caanaha bari hore lagu leefay maanta waxa haray warshadihii jidka warshadaha ee Muqdisho aad maqashaan wax allaali wuxuu warshad ku taalo dhan waa xaraash
حسن ديقة يرهركي سيبسنية فاملكيس ساقي حاسسكيس يعروتي سيبسنية إيمانك ألا كاقاد وأفرت قبليها الباب هذا بلا كاسو غش وروحان يا أمضك قبتها وروحان صومالية وحا أترادين يسين إيد لقيلين يسون حسن ديقة معها ما أنت حسن ديقة والله وبالله وطلعي وحن مغلق الله ضا واحد هذا ماشان حيرة بالله وحين مرق لوضا عربك لوضا وحل يروح وحلي هي حركة يرو سيف سيدا سيف توكلا يبولي marka carabka saaca u soo maraysa wax taada bariyada meeshan xiiraba Allah wixin maray meeshan xiiraba Allah wixin maray waa tabti carabki looda ku yaala wax allaalay wuxuu buldaanana deynaya wallahi baan u jirin inuu dadkii dumarkina hore u iibi horena dumar waa u iibi maxaa haray wax allaala iyo wax haray ma jirto baan qorxoolii dadiga waa doofiyay dumarkii waa doofiyay dalkii waa xaalufiyay bad ha sheegin bari ha sheegin meesha la yiraahdo meeshan habaarka qabtay nimanka gaalada ay ku jiraan waxa magaceed baad meesha lixaad ay ku jirto dhul wax allaari waxa dhulka yaalo dhan isaga waxa weeye Kristo lacagtu uga socota inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahu naga soo gaar ilaahu kan naga soo gaar ilaahu kan waxba reebi maaye rabbi oo naga soo gaar waxaan ka baqayaa maalinka uu kursiga ka dugo ninkaasi Soomaali wax allaali wax laga wada hadlo madaxtooyada xitaa inuu rahan dhigtan ka baqayaa rahan wallahi waxaan ka baqayaa madaxtooyada Soomaaliyeed iyadoo rahaman oo lacag lagu leeyahay oo dalka waxa weeye Dubai ay leedahay anaga madaxtooyada la waraaqayna la ka saxiixay waatan oo dhulka madaxtooyada anaga le ma wallahi ka baqayaa wax kale ay ku shaqeynaysaa إنا لله وإنا إليه راجعون ورفاتح هذا المرأة إلهي كان هنجا سوقاره فاتح هذا البرامج كان سي شرقية وضاقلا وقطورة دالمين تا يأرجب بياش يأرجع كحسده يوم بدح كت دي إيمان لا وياشة ضاقلا وقطورة بدنينا سومالية هدير بالله ومرق بدني وين ديش هذا للضبق قبل والله قايلين والله بدأ وين ديني سيب بالله دبرنا وغشكين دونا ورسلنا نبادين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.